بسم الله الرحمن الرحيم قلنتي وعنا وناكسن دابضيال ميل الباد جوجتان waxaan weli ku guda jirnaa soo gudbinta waxyaabaha kaaba nolol farxad rajo iyo jacayl ku salaysan inkastoo nolol wada dhameystiran aan la helaynin sidaan ognahay nolosha waa safar bilow jidmar ilaa iyo dhamaad leh waa dhalashada nolosha caadiga iyo qofka intuu ka dhimanayo marka waxaa wanaagsan in aan u noolaano si farxad ku jirto horumar xambaarsan rajana leh هذا برنامج ما أنتوا حمرتنا وقاه طاهر جيته aqoon-yahan Soomaaliyeed waa qof muddo dheer u soo ololeynayay wanaaga iyo horu socodka ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibadba طاهر ku soo dhawo barnaamijka طاهر waxaan rabaa inaan kaagala sheekaysto ubadnimada ama caruurnimada cid walba soo marta marka waxa ugu wanaagsan ee la maalgashto waa abaabinta iyo koriimada ubadka marka maxaa talooyin ah ayaad na siin kartaa oo ku saabsan in la helo ubad horumar sameyn kara faraxsan jaceelna uu kala dhaxayn karo waalidkiisa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين walaalkay maxamed amiin arrintan waa su-aal aada u ballaaran markii laga hadlayo ubad in yani lagu toosiyo waxyaabaha keeni kara inay wanaagsanaadaan sunnadeena waxay leedahay fakrimuu awlaadakum waxsanuu aadaabakum falawlaadu hadiyatu min allah marka ugu horeyso ilmaha hala karaameeyo oo hala wanaajiyo takriim ha loo sameeyo aadaabtoodan hala toosiyo awlaadu waa ilaahay hadiyad uu bixiyo ababinta marka caruur kastoo Soomaaliyeed ama caruur kastoo qof kastoo waalid ah ababintiisu waxay ku fadhidaa saddex shay marka hore inuu bixiyo yani magac fiican inuu bixiyo caruurta uu dhalay marka labaad inuu dhiso ruuxda oo qofkaas oo isaga uu dhalay gabar ha noqoto wiil ha noqdo inuu dhiso ruuxdooda inuu dhiso oo geliyo aqoonta diiniga aqoonta maadiga labadaba inuu gelsho marka saddexaad bulshada uu la nool yahay waxay leedahay koodadkaas inuu baro saddexdaas horta ugu muhiimsan oo ugu waaweyn waxaa marka aan ka hadlayno qof xoolo in la tacbo iyo qof banaad in la soo saaro waxaa qiimo badan qof banaad in la soo saaro way xooluhu waad heli kartaa berito oo wax ka dhumi kara wax ka laga xadi karo wax ka baabi'i karo laakiin qofka aad soo saartid wuxuu anfacayaa ummadan jiil dhan wax u tarayaa adna yani ilaahay abaal bukaasina oo sababtoo ah dad fiican baad meesha keentay jiil wanaagsan baad keentay bulshada aad ku dhahdaysa oo akhlaaq iyo qayim leh intaba waan gartay waxa bini'aadamka intuu nool yahay waxa la yiraahdaa fal dambiyeedka ma dhamaanayo oo dunuub ayaa la gelayaa dambiyadana bini'aadamku wuxuu samaystay iyo diinta islaamka waxa jira shuruuciyo ciqaab ah marka runtii waa ayaan daro in la arko cunug ku dhex jira da'da 10 ilaa 20 aan weli xitaa si fiican aanan u noqon qof weyn inuu ku dhaco diiwaan ciqaab dambi marka maxaa sababaya macnaha ma oran kara waxa jiri kara door waalidka uu lahaa oo la waayay hadaad aragto cunug ku jira yani xayndaabka dambiyada hadaad aragto yani ma gelin cunuga xayndaabka dambiyada ilaa waxa ka dambeeya u sababaha وقضب sababtoo waa maxay cunugan waalidiinta Soomaaliyeed yani markaan ka hadlayno waalidiinta waxa loo qaybiyaa saddex group loo qaybiyaa waalid oo awood sheegta yani xoog sheegta waalid kaas macnaha inta badan ilmihiisa caasiya noqon sababtoo maxay wuxuu ku maamulaa awood way ka fara baxsanayaan bari waxay doonaan sameynayaan الميس أنت بدن وأدقت سيكون هاي واحد داعين ما بس ما إلا ما حوار ما قلان ما فريستان ما وضع حضلان فتم مثلا محمامين بقى قبل لما ولد عليه وولد دودية معنا مركو سيو مجال إنه ولد دوده أو يعني سميان حوار أما إنك كوضع حضلان مركا ويلكي وسود وانا ما قبله كوسود وانا يسام ويلكي لكن هذا بس سينين با أو مال تهيدا سعون يسا هذه واحد تهيد أدمرك الجراع يسوى قضب والد كلا بعد حاليا والد حرطة أو ديمقراطية شغلكم لها قولوا حضور سيمينة ملا سينين وحالي هذا افعل ولا تفعل وروحا وافعين وحن وحين مؤشرين لكن انت بدل الميس وحين قدان كونتون اما 50-50 والد ما كو حاجرو اللي هذا والد ما صاحب كلا وحالي هذا هو بيرمسيف بارنت اما ليبرال بارنتيغا
يعني waxaa la yiraahdaa authority parent democratic parent iyo liberal parent kan u dambeeya oo liberal parent waa waalidka saaxiibka la caruurta wuxuu ka ilaalinaa saaxiibtinimo way koo wuu la nool yahay labo way is wareystaan wuxuu siinayaa macnaa guide waa hogaaminaya wuxuu siinayaa meel uu aado iyo wuxuu suubiyo maxaa ma ka qarinaya laakiin hadii cunugii guriga ku joogay markuu gurigii ma uu dareemayo terror ama cabsi uu dareemayo aabihii ayaa maanta ku garaacay ama kula dareeray cunuga macnaa waa khatar wuxuu ugu soo yahay waa mid kooban tan xigta waxbarashada waxyaabaha hadda annagana haysta yani haddaan ka hadlo ajnabiga dhan oo ku nool dalkan Sweden matalan haddii cunuga uusan galaaska sagaalaad grund schoolinka oo si fiican uga bixin waxaan yiraahdo yani intermediate-ka iyo elementary oo si fiican uga bixin oo dugsi sare aadin cunuga wuxuu halis u yahay inuu galo fal dambiyad xirada dambiyadka inuu galo sababtoo maxay ma uusan helin fursad dugsi uu ku dhigto cilmiga uu iftiimo cilmi badan uu helo uu kaga baxo laakiin haddii uu meelaha ku hakado wuxuu noqonayaa qof oo wala duufsanaya qof kala duufsanaya wuxuu leeyahay war iskuulku ku dhacay ma socdo waa nin gabar baas waa wiil baas waa xasiilay waa khalad waxa qofka in la kabo la celiyo loo la celiyo lala fariisto oo aan yani la tahaddud lagu sameeyo marka kaabayaasha kale abuuri kara farxadda maxaa ka mid ah in dadka ay helaan bini'aadamka wal isla wada nool yahay waxa la yahay reer dhisan aabba hooyo caruur leeyahay ehel leeyahay saaxiib shaqo jiro saaxiib caadi ah jir diris jiro bini'aadamka waa isla wada nool yahay marka waxyaabaha kaabi kara farxad iyo rajo maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan waxa keeni kara oo rajo keeni kara rajo abuur kara oo cunugaana yani bulshadaas uu u shaqeynayo ama la shaqeynayo uu la falgeli karo waxa ugu muhiimsan inuu leeyahay meesha guri uu ku koray horta inuu guri fiican yahay waa number raqamka koowaad waa koow number 1 waa guriga uu ku noolaa aabaha iyo hooyada inay yihiin dad tacaaduf ka dhaxeeya dad kalgacal ka dhaxeeya aabaha hooyadii oo aan caruurtooda hortooda ku murmaynin hadday xataa wax isku qabtaa banaadina wax isku qabanaya laakiin wax isku qabanaya in si gooniya looga doodo waa caruurta hortooda in looga doodo ma waa qodobka koowaad cunuga wuxuu horseedaysaa hadduu arko aabihii iyo hooyadii oo weligood aan dirarsaneen oo weligood aan waxba ku murmayn oo arko guriga uu ugu noolaa si xora cunuga waxa waaye wuxuu noqonayaa waxyaaba oo ku raaxaysanaya guriga because ma u jeediyo aabihii hooyo murmaya laakiin waxaa laga yaabaa guryaha kale inuu ka maqlo aabihii hooyo murmaya laakiin wuxuu ku nool yahay ambienta ama milyan wuxuu ku nool yahay ama yani deegaan wuxuu ku nool yahay oo fiican oo aabihii hooyadii kow tan labaad daris fiican hadduu haysto dariskaas ay yihiin dadka uu la koray in laga warqabo maxay yihiin iskuulka uu dhigto inuu waalidka ka warqabo waxyaabahaas waxay kaabayaan cunuga inuu nolol fiican helo waxay kaabayaan cunuga inuu hore u socdo lana dhiirigeliyo waxyaabaha kale waxaa ka mid ah cunuga berri uu kaa aayi doono tiraahad hadduu wax yar qalad sameeyo no problem maaha tan sax haddii wax soo saaraya matalan fikri wado ama ideology oo wado inaad tiraahid okay ka soco ideologyga waa loo baahan yahay hore u soco aabe leanno leesh sababta u leeyahay maxay bani aadamka saddex walxaatay ku mashquulaan waxay ku mashquulaan qolo waxay ku mashquushaa wixii maanta dhacay waxaa sabaa dhacay kan baa dhacay kan baa dhacay qolo ku mashquusha qolo waxay ku mashquushaa qolo waxay ku mashquushaa fikir wada idea wada oo fikir ku mashquulsan yahay maanta hal abuur waay qolo waxay ku mashquulaa qof shakhsi ku mashquulaa shakhsi ku dhigaya maatan hebel sida waa waxa u fudud inuu wax dhaleeceeyo inuu wax dhaleeceeyo u fudud oo criticism joogto ah oo aan constructive ay ku mashquulsan yahay marka waxaa la yiraahdaa dadka waxa loo kala saaraa nin dad ku mashquulsan oo nin shakhsi ku mashquulsan nin maanta wixii ka dhacay Soomaaliya ku mashquulsan maanta marka qolahaas shirey qolahaas la shirin mugta ku mashquulsan yahay nin ku mashquulsan fikir inuu soo saaro idea inuu soo saaro marka dadka saddexaas ay u qaybsamaan marka ha noqon marka caruurtaadii dadka la nooshaa inay noqdaan maaha dad ku mashquulsan ama dad abuuraya fikir abuuraya hal abuuraya wax sameynaya development sameynaya oo bulshada wax ku kordhi kara xigmad baad waxay leedahay oo carabiya إذا لم تزيد هذه الدنيا شيء فأنت زائد عليه الدنيا ده كردين زائد أكتر شرحات الناس وحن كجرنا يا وحن كدريم يا إن بربار أنت وناكسن وكسب بحي عنق في عنقاس في عن إنه بلشة وهرمر يوح وكردين أيوه هرمر كي وحنا وحاوهل وفرحات يرجوين يهرو سعود تاسي وانقرتي waxaa mararka qaar waxaan sameeyaa cilmi baaris xagga netka ah marban waxaan arkay maxaa la yiraahdaa oraah ilaa hadda aanan ilaabin oo su'aal oo dhahaysa erayada ama hadalka
waxbay dhaawici karaan waxna way daweyn karaan ee kuwaaga maxay sameeyeen maanta waxa ku hadashay maanta ma waxbay dhaawaceen mise waxbay daweeyeen marka waxaan rabaa in yar oo si kooban oo la fahmi karo hadalka midka wanaagsan tusaalahan qof baa wax ii keenay inaan dhaho mahadsanid micnaha leedahay qof baan rabaa inaan wax weydiiyo walaalow haddaan raacay kaale ii imow daahir walaalkayga waxaan rabaa inaan kula hadlo meesha daahir kaale mar micnaha si hadalka tusaale anaa hadda diinteenna ayaa ka hadashay yani nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran ow liyasmut horta hadalka hadalkaada waxaa ku jira qof hadal xun hadalka dadka ka imaanaya waa qodob laanno bani aadamka waxaa layidhi haddii alle inaba aad rumaysay wax khayra sheeg ama aamus macnaheedu marka waxaa hadalka carabkan waxaa la yidhaahdaa asaa dhib kuu keena asaana wanaag kuu keena waxaa la rabaa carabkaada hadalka baxaya intuusan bixin ka hor inuu cabiran yahay or ninkaa la hadlaysid isaa ula hadlaysid iyo qaabkaa u hadlaysid inay yani waxyihiin qaab aada u wanaagsan laanno bani aadamka ilaaha karaameeyey ilaahi subxaana wa tacala walqad karamnaa bani aadam waxmalnaa fi lbari walbaxri ilaaha karaameeyey markaad karaamadaa ka qaadin hadal fiican ku dheh oraah fiican ku dheh markaa ujeedinaysa magaciisa ugu yeeri magaca uu jecel yahay waa qodob qodobka xiga oo mahadinta ah xadiiska nabiga caleyhi salatu wasalam man lam yashkur naas lam yashkur illah ninkaa ilaahay u mahadcelin famatala maxamed amiin iyo afgooya ii yimideen waxbay ii sameeyeen waa inay idhahdo waa mahadsantihiin ama ummaddii warbixin fiican usoo deeyeen ummaddii waa in la yidhahdo waa mahadsantihiin nimankaa loogu qoraayo aad baa u mahadsantihiin barnaamij fiican oo ummadda ay ka faa'iidaysan noo keenteen laakiin haddii oo aad ku mashquushid hadal wax buriya Soomaaliya waxay tiraahdaa hadal la dooxo iyo hadal wax dooxo hadal in la dooxdoocaro inta wax dooxi la in adiga dooxdoocdo aad tana marka hore kan inaad saas u kala warkan ma fiican yahay ma ku habboon yahay afgooy inaan idhaahdo warkan ma ku habboon yahay inaan hebel idhaahdo war maya war waxaan ma ku habboon inuu sameeyo taxliil waxaa leedahay qofka caaqilka waxaa la yidhahdaa ma hadlo intuusan isaga soo taxliilin ma hadla la yidhahdo markuu hadlaya wuxuu ogow ku hadlaa ilaa hadalka hadal wuxuu ammaanaya intuu aadan oranaa la yidhahdo hadalka ammaantaada ku jira waa tahay daahir aada baad u mahadsan tahay waxaan filayaa in talooyinka iyo aragtiyada aadna siisay in dad badan ay ka faa'iidaysan doonaan waxaan ku baahin doonaa baraha bulshada sida youtube-ka iyo facebook insha allah adigana ajri xasanaad allah kaa siiyo waxaan sidoo kale u mahad celinaya saaxiibkayga khaalig maxamed cabdi faarax oo inta badan dadka u yaqaanaan afgooya oo aan muddo sanadaha isla soo shaqaynaynay oo inaga duubay ما شاء الله.